kusoo dhawaada warka kalsame TV qodobadan idinahayna waxaa kamid ah faahfaahintii ugu dambeysay weerar loo maleynayay in mid argagaxiso yahay oo ka dhacay baar lagu caweeyo dadka isku jinsiga ah ay waqti ku qaataan magaalada Oslo ee dalka Norway. tahriibayaal Afrikaanana waxay ku leedeen xilli ay gudaha u galeen dalka Spain isbuurasho ama isdardar ay sameeyeen ayaana ay u dhinteen dhulgariir ku dhuftay dalka Iran xitaa dalka Imaaraadka Carabta ayaa laga dareemay dhulgariirkaas maxaa khasaare ah oo la og yahay waanu eegi doonaa. Britain waxaa qasab la yiri inay bilowdo difaac ay ka gashay duulaan uu ku soo qaado Ruushka. Madaxweyne Vladimir Putin wuxuu ku hanjabay inuu duqeyn doono London. maxaa laga dhaxli karaa dagaalkaas barbilowga dagaalka saddexaad ee adduunka ma noqon karaa iyo waliba Ruushka oo lagu eedeeyay in ay hub kiimikaad ku garaaceen magaalooyin ka tirsan dalka Ukraine. ugu horeyn hadda nagu cusub tahay subscribe dheh oo hel dhacdooyinka dalka qaaradda iyo deegaankaagaba muuqaalka Lexar oo si sheergaray hadii aad awoodo waad mahadsan tahay. aan ku bilowno wararka ka imaanaya dalka Norway ayaa waxay sheegayaan in weerar loo maleynayay mid argagixiso uu ka dhacay dalkaasi gaar ahaan magaalada Oslo baar ay ku caweeyeen dadka isku jinsiga ah ama LGTB-ga wax loo yaqaano laba rag inay isguursan karaan iyo laba dumar inay isguursan karaan dadka u ololeeyay ayaa barnaamijka ay aaminsan yihiin baar ama maqaaxi ay ku caweeyaan waxa la sheegay in weerarku ka dhacay banaanka hore ee baarkaas ayaana toogashada waxa lagu dilay laba qofood. booliiska dalka Norway waxay sheegeen inay baarayaan toogasho wadareedkaas habeennimadii xalay dhacday banaanka baarka caanka ah ee bulshada LGTB-ga loo yaqaan isugu tagaan ayaana uu ka dhacay magaalada Oslo ee caasimadda wadanka Norway. sanad walba waxa lagu qabtaa bandhig faneedka kibirka lagu sheego oo qorshaha uu ahaa maalinta Sabtida ah maanta weeyaane in la joojiyo ayaana loogu talagalay baa la yiri. labada qof ee dhintay iyo in ka badan 10 qofood oo dhaawacmay marka laga soo tago baarka lagu caweeyo ayaa waxa uu caan ku ahaa dadka LGTB-ga ama dadka isku jinsiga ah inay isguursan karaan ay halkaasi ku caweeyaan waxaana booliisku ay sheegeen in baaritaan ay wadaan falkaas loo maleynayay midka argagixisada ee ka dhacay halkaasi. toogashadan ayaa timid saacado uun ka hor xafladda sanadlaha ah ee Pride ee magaalada Oslo. qabanqaabiyaasha dholatuska Oslo Pride waxay sheegeen in booliiska ay kula taliyeen inay joojiyaan xafladda sidaas daraadeed Oslo Pride ayaa waxa ay ku boorinaysaa baa qof kasta oo qorsheynayay inuu ka qayb qaato ama daawado dholatuska inaysan soo xaadirin dhammaan xafladaha la xiriira barnaamijkan waa la joojiyay. qabanqaabiyaasha waxay u sheegeen dadka iyagoo isticmaalaya baraha Twitter-ka iyo waliba Facebook ay adeegsadaan iyadoo weerarkaas argagixisada loo maleynayay in uu ka dhacay magaalada Oslo ayaa haddana dadka isku jinsiga in ay isguursan karaan aaminsanay LGTB-ga cabsi xoogan ay soo wajahday. ciidamada ammaanka ayaana magaalada Roonda ka sameynaya baaritaano lagu guda jiro soo qabashada dadkii weerarkaasi ka dambeeyay ayaana ciidamada howlgalkeeda ay hadda wadaan. dad ku sugan magaalada Oslo ee caasimadda Norway waxay sheegeen in xaaladdu ay weli cakiran tahay. qodobada kale ee Kalsame TV ayaan eegaynaa markana dhulgariir ayaa ku dhuftay maanta Sabti ahayd gelinkii hore wadanka Iran xitaa dhulgariirka waxa laga dareemay dalka isku taga Imaaraadka Carabta 7:37 daqiiqo waqtiga Iran ayaa dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay 6.0 qalabka Richter scale koonfurta dalka Iran uu garaacay baa la yiri dhulgariirkaas sida ay sheegtay hay'adda dhinaca dhulka qaabilsan ee dalka Iran ee NCM ta loo yaqaano warsaxaafadeedka ay hay'adda soo saartay waxa lagu sheegay in ilaa hadda aanay jirin khasaare la soo tabiyay. wararka qaar ayaa sheegaya in dhulgariirka cabirkiisa uu ahaa 5.6 qalabka Richter scale-ka koonfurta biyaha koonfureed ee dalka Iran dhaca ayaana la tilmaamay subaxnimadii Sabtida oo saaka ahayd la tilmaamay in laga dareemay. telefishinka Iran ayaa warkan tabiyay waxaa dad ku sugan dalka isku taga Imaaraadka Carabta ay sheegeen in ay dhulgariirka xoogiisa ay dareemeen iyo dhaqaaqa dhulka uu sameeyay la ajligeed. waxa sidaan oo kale 22 kiiloomitir looga dareemay magaalada dekadda ah ee Jarak la yiraahdo ee u dhaxaysa jasiiradda Kish ee dalka Iran 13 mayl ayaa sidoo kale ay u jirtaa baa la yiri. Iran ayaana sanadihii la soo dhaafay waxa ku soo laabtay dhulgariirada noocaan oo kala ah laakiin lama soo tabin khasaare u geystay dhulgariirkii saakay ruuxay qayb ka mid ah dalkaas. bal markana ilaa 18 muhaajiriin Afrikaana ayaa la soo sheegaya inay ku geeriyoodeen xilli ay ka gudbeen xadka dalka Spain
dadkan ayaa waxa ay u dhinteen baa layidhi kadib isbuurasho ay sameeyeen xilli ay ka cararayeen ciidamada booliiska dalka Spain ee xuduudda ilaaliya. dhowr qofood ayaa sidoo kale dhaawacyo ay soo gaareen isbuurashada ama isdardarka ay sameeyeen la ajligeed. warbaahinta NPR ayaa warbixin lagu daabacay waxay tilmaamaysaa in dadkan ay badankood ka yimaadeen dhinaca waddanka Morocco ee galbeedka Afrika, iyagoo dhinaca waqooyi ee dalka Spain magaalada Melilla la yiraahdo la sheegay jimcihii inay ka gudbeen dadkaasi. 133 qofood ayaa ay ahaayeen dadka Morocco xuduudeeda ka soo gudbay magaalada Nador iyo waliba dhinaca Melilla, isla markaana waxa ay dadka badankood u gudbeen dhinaca Spain. xero loogu talagalay dadka tahriibayaasha ah ayaa la geeyey, iyada oo 18 qof ee geeriyootana la xaqiijiyey in goob farinjeer yaalla la geliyey meedkooda, dhowaanna la xabaali doono. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Morocco war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa lagu xaqiijiyey in 76 qofood ay sidoo kale dhaawacyo ay soo gaareen oo muhaajiriinta ka mid ka ahaa. dadka ayaana waxay sheegtay ciidamada ammaanka in ay ku tira koobeen 140 tahriibayaal in ay ahaayeen. 13 qofood oo dadka dhaawacyada soo gaaray ayaa markii dambe cusbitaalka ugu geeriyooday sida la sheegay, taas oo tirada ka dhigtay in 18 marka lagu daro 13kaas ay dhimashada gaarayso ku dhowaad 30 qofood. hay-adda Human Rights Watch qaybteeda Morocco xarunta ku leh ayaa war ay daabacday waxay sheegtay in ciidamada booliiska Spain ay qalad ku ahayd in dadka muhaajiriinta ah ay sidaas ula dhaqmaan. bal markana Ingiriiska wuxuu hadda diyaar u noqonayaa baa leeyahay oo qasab ay ku tahay in uu difaac ka galo duulaan uu ku soo qaado Ruushka. jimcihii shalay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin wuxuu ku goodiyey in ay weerar ku qaadi doonaan oo la duqeyn doono magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska. iyadoo sidaas ay tahay, Boris Johnson ra'iisul wasaaraha UK wuxuu diyaar u yahay in ay difaac galaan si la isaga badbaadiyo baa la leeyahay ama difaac looga galo weerar xukuumadda Moscow ay ku qaadi karto dalkooda. warbaahinta qaarkood ay tabinayaan dalka Ingiriiska sida Telegraph iyo Daily Mail waxay leeyihiin ciidamada ayaa difaaca waxaa heegan la geliyey si ay uga hortagaan duqeymaha uu ku goodiyey Putin inuu ku qaadi doono magaalada London ee caasimadda Ingiriiska. xaalka weli ma sahlana, iyada oo ay u muuqanayso barbilowga dagaalka saddexaad ee adduunka haddii ay arrintan xaalad kale abuurin. Boris Johnson ayaa isgarabtaag muuqata u sameeyey dowladda Ukraine ee weerarka ku qaaday Ruushka 24 bishii Febraayo ee sanadkan 5 bilood ayaa laga joogaa hadda dagaalka ka soconaya Ukraine gudaheeda. dhinaca kale wararka ugu dambeeyay ee dhinaca Ukraine waxay sheegayaan in Ruushka uu adeegsaday hubka kiimikada ah, isla markaana dad shiciba ayaa la soo sheegayaa boqolaal ah in ay ku geeriyoodeen toddobaadyadii la soo dhaafay magaalooyinka Severodonetsk iyo waliba Lysychansk la yiraahdo ayaa la soo sheegayaa in dadku ay bilaabeen inay isaga barakacaan. Sergey Gaday oo ah gudoomiyaha gobolka Luhansk wuxuu sheegay in ciidamada Ruushka ay weeraradooda u adeegsanayaan sida uu ku eedeeyay hubka kiimikaad. wuxuu sheegay in magaalada Severodonetsk oo ka tirsan gobolka Luhansk ay ahayd ubuucda dagaalada waayadan ka soconayay dalkaas, isla markaana ay u muuqanayso 17 ka mid ah dadkaas waxa la sheegay in ay jirkooda gubteen markii madaafiicda hubka kiimikada ah loo adeegsaday goobo ay ku sugnaayeen. kiimikada asodka ayaa ka mid ah baa la leeyahay waxyaabaha ay isticmaalayaan ciidamada Ruushka ee ka dagaalamaya magaalada Severodonetsk la yiraahdo. marka xaaladii ugu dambeeyay sidaas ay leeyihiin, iyada oo dhulgariir uu ku dhuftay dalka Iran sida aad maqlayseen. Norway baaritaanada socda howlgal kadib markii weerar loo maleynayay argagixiso dadka isku jinsiga ah baar ay ku caweynayeen ee dadka loo yaqaan LGTB-ga la weeraray. wararkaasi wixii soo kordhay dunida oo dhan Kalsame TV ayaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah. guud ahaanna waa naga intaa wararkii caalamka aad kala socoteen ee nabadgelyo.